بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيجا كحرم برتيدا يوتيوب ومركلة ولا لكن أبو كرعوالة أمر دير عافماد عبادة سبحان يعني إذا رجينا وحن عاود كعشة كنيا شكل كلا أو جوبشو كأها شكل واحد لحريرتها دباتوين كأي بالوذوه ليهين مركنا داد بالوذ مقشان واحد زليد أضي قاد بصوّد مركن قاد معها بالود وخمار khamaarka bahalka la yiraahdo aad baa looga cayaaraa wadamada Scandinavian-ka waxaa jiray nin odaya oo runtii nin oday weyn ahaa oo bahalkaas aad u cayaari jiray addictionkiisu bahalkaas marka waa very high yani qofku wax uu xeerinayo uma jirto xas iyo caruur buu lahaa family reunion baa loogu keenay gadaal baa laga keenay asagoo already bahashaas balwada inta qabsatay digada ka dhigtay baa reerkii caruurtii loo keenay reerkii caruurta marka loo keenay dabcan dhaqaaluhu wuu kobcayaa magaaladaas uu deganaa buu reerkiisii iyo 4 caruur loogu keenay gabadha wuxuu ku yiri oo ka dhaadhiciyay qarashkii aan kugu keenay iyo hawlo badan baa la igu leeyahay marka cuntada haddaan miiska idiin saaro dhaqaaleysta oo maaragtay rootiga iyo badsada iyo cornflakes-kaas caruurta quraacda ah waxba kale intaan deyn baxayno waxaas iskaga qaraaban jiray adigu been buu sheegi jiray wax walba reerka soo gala dan buu siin jiray waadanba adigu gabadhii xoogaa ilbaxday oo asxaabo kala yeelatay oo taleefanno iyo dad ay gabdho kale oo yaqaan magaalada heshay oo adigu sheeko dumar waa la iswareystoona ayuu meeqaad ku jirtaa iyo hagbad baa la qabanaya ayuu tadaan soo galay walaalahay maxaan soo galaa anagii baaba deyn ku jirna deyntii lacagtiina lagu keenay aniga iyo caruurta odaga intaasaa lagu leeyahay gabadh islaameed bay ahayd iska inisan ah waa loo yimid waxaa la yiri wax ka jira ma jiraan wadankan iska daa in deyn lagu lahaale maalinkaa timid lacag soo degis ah oo adiga iyo caruurta loogu talagalay oo dharkiina iyo wadarkan aad la qabsataan iyo baxta leedin si iska daa mid leedaarac leedin raacday heblaaya 5 caruur leh waxay qaadataa intaas bil walba intaasay soo dhacda xisaab aysan weligeed maqalba madaxa ninka iska qabo odagii bay qof horta runtii waxay ahayd xishood badan odagii bay adigu kulleed ku dhigto waxay tir markii dambe naga ta ma jirto waxa adigu aad qaadatid meeshaad rabto kula dhaadhac gurigaagaas qada iyo quraac iyo casho iyo sharaf iyo maamuus ugu imow laakiin lacagta caruurta naloo siiyo definitely akoonkiga kusoo wareeji Finland waxaa jira automatically normally haddaysan iyagu request garayn lacagtan child benefit ku automatically hooyada akoonkeeda aadaa laakiin asaga ka hortagay arrintaas oo yiri qoftaan akoon ma taqaano anaa maamulaya reeraha gabadha Nicola Arvilomi baa la dhahaa way ogeyd reerku xoogaa dhib inuu haysto gabar waxay ahayd xafiiska qaxootiga joogta oo lacagtan iyo cayrta iyo waxaan ka mas'uul ah oo qofka contactiga pointi ah marka mar walba wax jiraan in asaga imaan jiray asaga wax complain garan jiray war hebla aaway warba class luqad baa la barayaa uma ay baahan caruurta gurigeeda haysata adigu intuu dabooli karay intuu qarin karay balwadiisa wuu qariyay waa sheekadan marka sheekada cajiibka ah maalin maalmaha kamid ah ba marka kaararkii bangi bay samaysatay lacagtii bay la wareegtay kaararkii bay ka qarsatay mar uu cash point ka habeenbarkii kala kalaho dhowr boqol kala baxo wax cunug farsameeyo waa nin balwada haysay maalin buu 26 bishii soo dhacday lapsi lisa baa la dhahaa lacagta caruurta 26 bisha inta aalasay ka lahay marka kaarkii bangiga already cash point saamba mar damba looga qaadan gooska inta ka qabatay laba ka kala dhigtay bisqad maqas ku kala goys bahal yar oo kaar ay leedahay oo inside-ka akoon ku qoran yahay gabadhu marka waa gabar dheer oo laf weyn waxayna xirataa niqaab bangi post office la dhaho ba xaafadeeda agteeda ku yaal very regular bay ka tahay qof kale oo sida u eg ma soo galo qof kale oo niqaabkaas qaba ma soo galo
iyaduna maalinkaas 26 timaadaa waxeedana qof kala kan iyo kala sii maahan kaayki bay dhahdaa waxa kaarka yarba u dhiibtaa luqadna ma taqaan kaayki macnaheedu waxa weeye waxa ku jiro dhan isii kaartada adigu wuu fahmay habkay u dhaqanto meeshay ka qaadato dhag maalinka dambe u jiro maanta fursad kugu dhowday subax bay baxday 26 bishii intay maqnayd buu cunugii yaraayo looga tegay kuwii waaweynaa iskuullaa la kala geeyey inta bus jeerka ku ritay oo jalaabiib ay lahayd hab isku siiyey oo nin caataab u lahayd dhowr hoos ka sii gashaday buu bus jeerkii asagoo wato oo jalaabiib xiran buu bangigii dalaqayri saas markuu u galayba tilkii ugu horreeyo galay saas inta u dhiibay muraayad baa saa uga xigta marka hi good morning Siraad how are you good morning kaiki sidaadii baad kaiki wixii oo dhan taas yo dag wuxuu ku jiray usoo bixi safartii ka saa have a nice day thank you very much uu kala wareegay xurguf intii yaro laba luuq ka dusay oo jalaabiibtii iska dhigay oo cunugii dhigay markay saa usoo gasho yeedheen hadda nabaday magaaladan aadayahay cabaar bay gurigeeda iska joogtay hadhowgo kale soo dhaqaaq iyadoo intii wadato cunugiina wadato jalaabiibtiina wadato dabcan jalaabiib kale inay ahayd baa dhici karta meeshii bay timisay kaarkii dhiibtay Salima, good morning, Siraad. Are you back? Ma fahimta marka. Say, yeah, today, 26. Salawi, no, okay, 26. You just were here. How can I have the money joke? Say, children, money, you know, today, kaiki. See. No, Siraad. You were here, and 1 hour ago, you took the money. واسفهمي وايي iyadoo xanaaqsan thank you inta tiri bay soo dhaqaaqday xafiiska noogu timid maalinkaas xafiiska fadhiyay way soo gashay waxay tiri caruurta bangiga ii diiday mise lacagtii lama soo shubin waxay u qaadatay marka gabigeedaba inaan la soo shubinba gabadhii Nicola inta u soo gashay tiri Nicola hi Nicoladuna runtii waxay ahayd gabar cadaan oo xafiiska haysata laakiin aad bay ugu jajabnayd I like cilankaaga jecelahay hawaari Siraad as children fiican ma fiican tahay af Soomaaliga xataa isku day gabar waxay ahayd runtii aad u soo dhaweysa dadka Siraad waxay arkay surcay ku kacsan yihiin Siraad xaaladeedu caadi ma aha halkii naqaabka saa inta isaga saartay bay tiri Nicola the money today the 20 the 6 the why no money she said no way what happened she said lacagti waa bixiyay she said come here abuka kan aniga baa soo galay she logged into the system dag yo manigaaga waa lagu siiyay tiri is you have been paid it's in your account xalay from midnight xalay saacadu markay isbedel it should be in your account maxaa dhacay see wuxuu jiraan la maxaa dhacay cambaro lacagti waa la bixiyay sayt warwalaalo ma aqaan wax u dalay bangigan xunka ayo rasiistaha waxay dhaheen lacagti kuma soo dhicin saan bangi waa tagtay tirwaan tagay bangigi Nicola bangigi way tagtay kaarkeedii bay dhibatay waxa la yiri lacag laguma hayo gabadha Nicola Arvilomedo waxay ka warqabtay ninkeeda inuu problematic yahay oo u dhib badan haystay oo xafiista xataa deymo badan iyo qarashaad badan iyo he had some issue problem way fahamsanay waxay tiri hold on Asus Bank good morning Nicola leedaha xafiiska hotelka la socaya just my client is here waan kugu dhiibaya hadaa rabtid just to confirm waxaan rabnaa inaan noo sheegtaan what happened to her money can I give you account details kalama hadli karnaa la yiri Siraad waa tan luqadda ma taqaan speaker kan daaraya turjumaan kan galina hello Siraad hi hello terve Siraad talla Siraad deef bertiga kax noola so commenta 1967 adu berteeda sheeg kax noola ugu berta iyo labadii number oo dambe la socday kuweedii ma kuwan idin sheegay dabcan waa number on top of my head kasmi social security number baa lahaa address confirm gare waa kaas okay waxaan ku samayn karnaa
saakay timid bay tiri gabadhan waa awa kalaankayga aniga gabadha waxaan ahay xafiiska qaxootiga haysata what happened to her manigeedii Sally listen we don't know what's going on Siraad is a very happy customer waan soo dhaweynaa way noo timaadaa lacagteedana way qaataa with no problem same routinkii ay samayn jirtay bay maantana samaysay saakay timid lacagteediina way qaadata nin kalediiba inta ku jeestay tiri Siraad what's going on maxaad u dan leedahay Siraaday waxaan maad aqooni lacagtaada soo adiga saa ka qaatay say tiri war hoy ileen ibtiro war niyo gabdhahaana isku kay turturay anagu ma qaadan ma ku yiri islaan baan maxaan beento ku falay gabadhii waxay tiri we will get back to you issue-ga jira Siraad bay inta u soo jeestay tiri Siraad problem baa jira wuxuu yahayna we will investigate laakiin biti cashka xafiiska lacag yar waxa jirta biti cashka lagu rangareeyo 500 oo markiban kaasi siinaya today waxaad u baahan tahay ku sameeyso lacagtaadii I am responsible iyo bangiga don't worry haddaad adigu qaadan 100% aad tahay some fraud baa jirta and we will investigate setriwaa yahay bal si xogaagan xaruurta 500 baa farta laga saaray gurigaaga iska aad baaliye Nicola Arvin anigana waxa la yaabo karta iska aduguna iska tag iyagii baa isku haray xafiiskii qaxootiga iyo bangigii email bay inta ku taagtay tiri listen I am 100% sure it was not Siraad qofka lacagta la baxay for your own security idinka laftigiina dantiina bangi ahaan reputationkiina has been questioned waa ognahay inaad cooperation la sameyseen oo aad gabadhan aad asxaan u sameyseen oo iyadoo iska xiran niqaabkeeda inaan waxba ID iyo balaayo weydiin oo markaas waad u fududeyn jirteen laakiin arrintii baa laga faa'iideystay waxay tahayna waa in gunteeda la gaaro bangigii markaas oo furka tuuro haddii aysan iyada ahayn lacagta annagay nagu leedahay top of that waxay nagu leedahay compensation intii ka go'day hadday wax sii deymato hadday maaragta overdraft gasho lacag lagu lahaa haddii interest la sii saarto oo maanta bixin waxaasoo dhan we take full responsible baliin annagaana investigate garaynayna cidda lacagteedii qaadatay don't leave CCTV way ku jiraan 3 bari kadib baa halaysu yimaada xafiiskan nimid sawaana la qaaday bangigaana la geeyay bangiga gudihiisaan galay meel gadaalaan sii galay meel waxaan tagnay fadhi maahane miis weyn oo halkan projector yaallo oo halkaas derbiga leer ku qasan yahay Asus bank ku qoranta ninkii branch manager-ka Siraad I know inaad customer-ka bangiga ahayd waqti badan waan ka xumahay inaan xaalad noocaana ku kalanno oo aanan hore u kulmin waxaan rabaa inaan ku caloolfayoobaatid annaga Asus banki haddaan nahay Asus banki ma ahayn post banki haddaan nahay we take full responsibility lacagtaada amnigeeda inaan la dhicin annaga ayaa kaa mas-uula haddii qof walba oo customer qof inta iska dhigo lacagtiisa la bixi karo then it means annaga we are not doing our job adigana waa inaad fahantaa fursadda asxaankii adiga aan kuu samaynay baana loo kaga faa'iideystay because islaamnimadaada iyo niqaabkaaga ayaan kuu xushmaynay ee qofka normally wejigiisaan fiirinaa ID-giisaan fiirinaa laakiin adiga maadaama aad tahay halka qof oo magaaladooda oo dhan noocaan u labisan oo customer-ka noo ah waan iska kaadeyn inaan easy kaaga dhigno aan wax kuma dhimin xoogaa language barrier ay jiraan laakiin rest assure ku kalsoonow wax walba oo dhaca lacagtaada waad helaysaa today by the moment aad shirkan ka baxdid lacagtaadii full iyadoo ah bay akoonkaaga kugu jirtaa but annaga bangigayagii baa loo soo dhacay bangigayagii baa lagu xadgudbay bangigayagii baa la jabsaday waxaan kaa rabnaa inaad honest ahaatid waxaan ku tusaynaa markii aad soo gashay qofka iska kaa dhigay qofka dharkaagii qabay qofkaas haddaad garanayso waa qof access u leh dharkaaga akoonkaarkaaga yarkaa oo bangiga lacagta looga baxo informationkaaga xogtaada xilliga aad timaado annagu ma naqaan qofku yahay laakiin adiga ayaa laga yaabaa inaad garato waxaana kaa rabnaa in honest inaad noo sheegtid because ninkaasi wuxuu ku xadgudbay waa robbery waxa uu sameeyey waa bank robbery
okay waxaan kaa rabnaa siraaday inaad saas yeesho waayahay bay tiri anigu ciddii aan arko haddaan garto waa sheegayaa walaal ciddii usoo dhacday ciddaan aniga anay bay xadeenbe waxaan asxaan ugu sameynay sheeg soo nin IT-da expert baa yiri Tommy olahuba va ku soco shaqadaada qabso saas intii yiri projectorki darbiga ku daaray baa waxaa kaameradii albaabka haysay albaabka bangiga baa waxaa lagu qabtay 8:49 camal waxaa la yidhi saacaddu waa 8:49 daqiiqo carradu waa iska quiet bangigu weli ma fura let's see horaa wax yar loo waday 8:59 9:03 markay ahayd baa la yidhi let's see our first customer hadduu soo galay look at that Siraad do you know that person marka anigii iska dagaaladii anigii baaba Siraad lafteed u mudasuna Siraad waxaad u daleeday ambaray waa adigii soo adiga saaka ayuutadaada qaad waa baxay sitir hoogayo astaghfar see wait can you zoom in bali saas intii dhag kasi buu soo jiitay soo socda saa ujigiisa la soo galay saa shabaqii madawaa in qaabkii waa laga sii dhaxbax saa gar yar oo cadcad baa loo tagay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah sitir hoogayo magacaas ninkiisa sheegi maaye magac kale oo la baxaya hoogayo waa faarax bay tiri that was the only time in my entire career ka aan turjumaanka ahaa unhesitant xogaa seconds baan waxaan dareemay inaan ceebtaas asturo saana maxaa tiri nin kale arfur lama baa igu soo bootay tiri listen maxay tiri what's the name ka ay sheegayso Farah do you mean your husband sabangigi ninkii ahaa soo wada excuse me we want to know if you know the reason we are showing you ma inaad idinka dhexdiina aad qof isu sheeg we want to know who this person is I'm going to call the police right now Nicola baa tiri and orea u sheeg bay tiri abu karo ha meermeeri sheekadan tell her ask Siraad ninkan ma garanaysaa faaraxii adiga ku qabay miya Nicola Siraad intay fiirsay tiri Siraad tell me aniga you husband this iyada waaba gudub turjumaanadii waa gudubtay say Siraad waxay tiri yes he is him ilaahu hana caabay saa la yiri what say tiri waxay tiri waa very shameful and markaas la yiri so you guys know ninkii bangiga soo boodo yiri ninkoladii ku jeestay we want to know who I want to know who the Farah is where is he right now what address did he live how did he know your information war adiga gabadhii waa statement dheer laga qaaday waxa la yiri we apologize aad baan uga xunnahay alugooyada iyo si socodka iyo soo socodka iyo lacagtaadii aad weydid iyo lacag kale bitig kaash xafiis in laga siiyay iyo dad aad deyn ku lahayd barhabis inay ku sugayeen iyo biilal aad bixin lahayd inay all we take responsibility wixii kugu dhacay lacagtaada loo dhacay annaga ayaa ka mas'uula lacagtaadii intay ahaydna full amount by the time you walk this meeting way kugu jirtaa annaga loo daa we will deal with Farah thank you very much bali oo iska dhaqaaj Nicola iyo ninkii waxa isku haray iyo bangigi wuxuu yiri anaga xataa uu nafsay thank you very much obviously hadda waan garanaynaa hebel Dave Bertigiis waa kaas already information oo dhan xafiiska qaxootigaasi gurigu la degan yahay waa ninkeedii la ilaaha illa allah muhammad rasuul wa nabi it's the same day baa loogu tagay baal gambling la dhaho ninkii yaqaan baa yaqaani saas loo cayaaro toddobaala iyo asagoo la dagaalamaya iyo Joker iyo Demon waa nimanka odayaasha garbaha ka taabtay bye warbal keen baa leeyahay aqwa alla ku ridi qarj inta la isku jabiyay Farod wuxuu ninkaasi ku badbaaday gabadhii baa waxay file garayn case
ah inuu dhacay oo boobay laakiin bangigii baa ninkii wuxuu ku dacweeyey inuu ku xadgudbay inuu fraud sameeyey waxaana lagu xukumay 1 bil oo probation service asaguna wuxuu ku doodayay ahba gambling problem anigu bangi dad kale oo outside ah ma dhicin waxaani waa lacagtii familkayga un bay ahayd access si kale ugu waayay adigu markii crime horena muu gelin markii la fiiriyey bil waxaa lagu xukumay probation service lacagna waa la ganaaxay intay ahayd ma xasuusato sheekadaas waxay ka dhacday waddanka Finland runtii waana cibro qaadasho badan baa ku jirta balwadaha iyo marka la leeyahay inama al-khamr wal maysar ka fogaada oo ka dheeraada oo waa wax xun marka lagu leeyahay runtii waa bal ninkaas sheekadaas ku dhacday baa tusaale noogu filan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inaan intaan sheeko kale idinkaga imaanayno waa aniga channelka walaalaha kale la wadaaga soo dhawaada waxaan kaloo jecelahay runtii your opinion you inaad fikir ahaan igu soo gudbidid mawduucyada aad is leedahay way u baahan yihiin sheekooyinkani waa iska sheeko waa madadaalo laakiin waxaan rabaa real cases caqabadaha qurbaha ka jira anigu dalkii iyo siyaasad iyo mooshin iyo ma gelayno qurbahan ku focus garaynaya dhalinyarada habka loogu korin karo roolka looga baahan yahay waalidka sida loo baahan yahay inuu dhexda u xirto especially aabayaasha barnaamijyada noocaasaan rabaa inaan idinla wadaago marka tilmaama itoosiya commentigiina iyo aragtidiina iyo fikirkiinana waa soo dhaweynaya aad ayaad mahadsantihiin intaan kanoo kale la kulmayno haddii aad aragtid qof qaad cuna uga dig ka waani waa walaalka soomaalidu waxay dhahdaa ninkii waalan walaalkiisa u miyir qaba marka raggaas walaalaheena balwada anaa ku jiri jiray laga waaniyo yaan lagu nicin yaan lagu colaadin cala afay iyo doqon yahow yaan la oran taasi waa maskax weerar dhaawac bay wadnaha kasii gaarsiinaysaa laakiin ha loo sheego inuu fiicnaan karo inuu qurux badnaan karo inuu qiimo yeelan karo ana loo sheego wakaas abuukar cawaalaba qaadku cuni jiray aad baa idiin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu